asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha dhammaan si kastood ii maqlaysaan iyo meel kastoo joogtaan waa janalkeeni fanol janalka baro tiireyga adigoo gurigaada jooga. intaas kadib waxaan maanta kusoo qaadan doonaa baaskiilkan horteyda ka muuqda. waxaa lagu magacaaba speed, waa xawaaro ku socda bedelig, waa disnelse electric feet, waa kuwa electrofeetiska ugu dheereeya ayay yiraahdaan. marka waxaa imtixaanaadka laga yaabaa in lagu keena xawaarihiis lagu weydiiyo, taarika noocuu qabaa, waxaa laga yaaba raabibaaskiisa iyo waxyaalaha lamidka ah, sida ay nooga waramaan ardaydeena qaar ka mid ah imtixaanaadka waxyaalaha lagu soo kordhiyay dabcan amay gadaal uga soo dareen. waayadii horeba annagoonan maaragtay imtixaanaadkaba raacaynin ayaa si guud waxa u bari jirnay qofka ardayga inuu xifdiyo taarikooyinka, mootooyinka, baabuurta, baaskiilaha noocyada jidadkay kala maraan iyo xawaarahay ku socdaan. kuwaasaan weligeenba u diyaar garayn jirnay ardaydeena. marka bal kusoo dhawaada insha allah midkaanaynu falanqaynaynaa. speed bedelig maxaa la dhahaa iyo muxuu ka kooban yahay. sawirkan halkan nooga muuqda marka waxa waaye speed bedeliga la speedo maxaa tahay. horta waxaan ka bilaabeynaa speed xawaarihiisa waa 45 kilomitir bar uwa ayuu ku soconaya. culeyskiisa ama khifeekti wax lagu magacaabo in qof walba adi miisaana leedahay. khimidalti maanaa waa iska qiyaasayaan inta u dhexaysa 2520 kilo iyo 530 kilo. markaa imtixaan ka shaqeynayso haddii lagu weydiiyo xawaarihiis waa 45. haddii culeyskiisa lagu weydiiyo su-aalaha a b c leeyihiin dabcan 25 haddii ku jirtana 25 dooro, haddii 35 jirtana 35. kentekin taarikhdiisa waa kheyl waay sida kuu muuqata halkan. bronfitis waxa waaye forbliqti waaye. kentekin markuu leeyahayna waxaa ku qasban tahay in faseykrin laga bixiyo, waa saas wa. haddana intaas ila fahantay wuxuu leeyahay culeyskii u ahaay lengtiga waa dherarka waay. adi dherer baa leedahay waa 1 mitir iyo 80 waay ya 1 mitir iyo dadkuba ka dheeriyaas leedahay miya ilaa wuxuu noqdaa n 2 meter. waxaa qasab ah oo forbliqti ah helm koofiyadeeda waxaa waaye nambarkeeda nta 86. waa nta lagu magacaabaa 87,776 waay 8776 waa 8770. intaas hadaa la fahantay waxaa ku xigaan fiirina marka waxaa ku xiga marka xawaarihiis waataan soo sheegnay. jidka uu maraayo halkan waxaa ka cad inuu maraayo jidkii caadiga uu ku socdo, waa fahmaysaa. fitstroga malaynaa kalarkiisa nooca uu yahay, laakiin waan arki doonaa wadadu maraayo xaguu maraayo intuu maraaya waa electrofetis way kow. xawaarihiisa waa 45. taarikadiisa waa kheel forbliqti waay. waxaad u baahan tahay va faseykrin. va waxaa la dhahaa vetelig and spraklig oo faseykrin isforbliqti waay. waa markaa adiga dadka kale aada dhibaato u geysato in magdhow la siiya ya oo isqaada farquudkooda iyaga laga bixiya qarashaadkii, laakiin adii baaskiilka ayaga hadduu kaa jabo waxba lagu sii maayo. saas waay macnaha. waxaa kaloo qasaba helmi koofiyad. koofiyadda waa koofiyad hudka hore ah oo bronfitis helma ah nooca loogu talagalay ayaa qaadanaysa. intaas haddaad dila fahantay waxaan u gudbaynaa marka ninka odayga wadadu mari doona. inta badan waxaa waaye bronfitis bada lagu magacaabo. bronfitis badka kalarkeeda waa arkaysaa dabcan rinji ayaa oraya ku buufsan sida halkaas kaaga cadba.
fiitspatka wadada fiitspat la dhahay baaskiilaha wadaday maraan waa midaanu baaskiil ku sawiran yahay waxaa waaye on the board hadduu ku yaalo oo brown fiitspat iyo Stockistan haddii alleen on the board Stockistan of geen brown fiitspat aysa ahayn waxaa laga rabaa inuu boorkan ku yaalo boorkan waxaa la dhahaa speed pedelec oo ah in oo ay Stockistanaad haysato intaas waa isla fahanay marka hadduusan ahayn boorkan hadduusan ku yaalin hadda sawirka kaaga muuqda wadadan fiitspatka ma mari karo raybanka sida asalka inta kaaga muuqda rayban waa wadada oo caadiga inuu mara ah wixii 45 bronfitiska iyo asaga dhamaanba halkaas maray weelka rayvasa marka uu la qaadanayo minimal rayvaskeeda ah ee ma la dhahaa sida sawirkan kaaga muuqdaba haddii aa haysato marka mootooyinka orodada motofitse ama persona auto ama faraaqta auto c a b haddaa haysato waad wadi kartaa dadka wadi kara da-dooda meeqo yemud minimal 60 year 16 sano uu yaraan waa inuu qofki yahay dadka rabaa inay wadaan speed bel haddaad ka yar tahay maya imtixaanka markii lagu weydiiyey marka weelka rivers qaba ah m rivers qaba weelka haddii lagu dhaho ilmo 15 sano jiro ama 14 sano jiro ma wadi karaan jawaabta kooban ne ya af meetingkiisa dherarkiisa marka hooqtiga sida halkan kaaga muuqdaba waa 1 mitir 10 1 mitir iyo 10 waa 1 mitir iyo 10 waa hooqtiga lengthigana dherarkana waxa waaye 1 mitir iyo 80 ilaa 2 mitir waxaa malaysaa dadku ka dheeryahay Soomaal khibirtiga culeyskiisa waa 25 kiilo ilaa 35 kiilo marka nooca koofiyada profit helm haddii noocan yahay oo khudka koorti yahay noocan waa isticmaali karaa haddii kalena midaan soo gadanaysaa nambarka le 87 76 waxaan halkan kaga hadlayna marka waxa waaye ninka lagu magacaabo baaskiilkaas waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahamtay marka su'aalaha imtixaanaadka lagu weydiinayo sidaan ay u qaybsami doonaan saddexdan su'aalo ayaa aad ugu muhiimsan waxaa lagu dhihi doonaa su-aasha koowaad speed pedelec is motor right-og miya haddii lagu dhaho motor right-og wax la dhahay jiro motor waa motor way right-og motor right-og waxaa waaye fortog oo la mid yahay gaadiid waay marka gaadiid aan motor culus saarnayn motor right-og ereygaas haddaa aragta of erey kale oo ah need motor fortog waxaad leedahay jawaabta kooban yaa ayaa dhihi doontaa haddii kale varmont speed pedelec riding halkee lagu wadaayo speed pedelec waxaa leedahay waxa lagu wadaayo oo fiitspatka fiitspatka waan sheegnay waa inuu haysto Stockistan pedelec sawir ah ama bronfitspan uu maraya ama raybank saddexdaas meelood ayaa marsiin karta saddexdan su-aalooda u badan uu ka imaanayo iyo xawaaraha lagu weydiiyo koofiyada nooceeda in lagu weydiiyo sida hore kugu soo sheegaba iyo minimalka dadka wadaya leftightooda weelka reekhalis mud speed pedelec fowqe sharcigee ayuu raacayaa speed pedelec tusalafta reekhalis bronfitis ayuu ku xukun yahay waxaan rajaynayaa marka inaad aada uga faa'iidaystay cashirkan inaad wax badan ka faa'iidaysatay casharkan ood maaragtay aan rajaynayaa inaad maaragtay aad weyleyn doonta ardayda dhammaanna waxaan u rajayn meel kastoo joogaanba kuwii guuleysta waxaan rabaa fariin inaan halkan raaciyo walaalaha haddaad imtixaanka tiiriin kusoo guuleysato fadlan los baket iska ilaali ina qaadata su-aal kale waxaa jirta nimanka baabuurta wata ama baragtaag dadka baraan asxaabadeyda ah u badan iyaga waxay ka shaqeeyaan businesskooda lacag lay rabaan faktigaa idiin sheegi kolley haddii fariinteeda maqlaan akhbaar badan baa xanaaqi doonta laakiin ani runta kama gabada iyaga waxay rabaan
dhaqaaley rabaa waa runtood waayo cashuur baa ku socota xafiis buu bixinaya baabuurkii blastina laga rabaa guri biiluu rabaa nolol u baahan yahay waa runtiis wuu ku saxan yahay isaga laakiin fadlan ka coso inaad bakeed qaadata bakeedka intuu dhammaaninna markii dhammaanin 10 cashar dhiman tahay ka codso inuu imtixaanka kuu dalban isaga waxba kama gelin ina baabuur si fiican u taqaano inaad u aqooninba iyaga waxay isku dayayaan inay ku dhahaan oo waxa waaye baabuurka ma fiicna waa sax waaye laakiin ajnabi u badan yihiin kuwa ajnabiga badanaa waa dhib badan yihiin oo waxay isku dayayaan markuu wax ku bari lahayba teleefonu iska qabsan marka macallimiinta dadka wax barayaan waxaan fariinta halkan uga jeedin haddii fariinteeda maqlaan macnaha waxa waaye war dadkiinan ardayda si fiican wax ugu qeexa oo maalinta koowaadba baabuurta tusa oo kob midka u furo baabuurka oo dashboardka bara oo maaragtay wax kasta u qeexa oo ha noqonina keliya inaad maaragtay baabuurka sidaana loo wada dhaho kowa inaad uga bilowdo furaha meesha la gelinayo coblin maxaa la dhahaa macallimiin aada u fiicana jiro rag badan oo akhyaarnahay oo soomaaliyadu wanaagsan gabdhahana waxaan kula talin lahay dadka maaragtay ka codsada u sheega diilka si fiican u gala si fiican dadku ula hadla inkastoon ogahay soomaali laftarkeeda inay dhib badan yihiin oo qofka dadku wanaajiyaba ama kan wax wanaajinaya ama kan daacadda ah aada loo dhibayo marka waxaa suuragal ah in ugu yaraan wiigii 2 cisho aada baabuur wado ha ka yaraynin sababtoo hal maalin waxba ma tarayso hal maalin adi dan kuguma jirtee ninka iskoolweydada iskale ayay dan ugu jirtaa shahaadadii adiina waa isku kordhacaysin adiina ha qasab maahayn ardayga inuu macallin kala hadlo dho shahaadada ay u kordhacaysa waa ina saas yeela no jadwalkaaga waa ina noqoto shahaadadiina kala sheekaysan oo tiraahdo soo dhawow ani waxaa rabaa wiigii 3 cisho inaa baabuur wada heshiiska aada gashaan ayay ku xiran tahay haddaada ku qanacsanayn tukaan waay ka tag meel kale aad laakiin adaa waxaa samaynaysaa ardayow waxaad wacaysaa macallin waad la heshiinaysaa wiigii mara aqbalaysaa hadhowna doodii murunaa keenaysaa heshiiska adaa galay ku adkayso intaada heshiiska gelin warkaaga ha caddaado waxaa idinkaga tegay meel kastoo joogtaanba amaano allah wixii fariin ah ama su-aalaad qabto fadlan commentiska igula walaag adigoo